wixii abaalmarinahna xafiiska ururka soo diyaargariyay barnaamijkan jaaliyadda Soomaali Community Toronto ayaa abaalmarinayo marka haddana ku soo dhawo shay batuuri adiga askari microphone bismillahirrahmanirrahiim waxaan rabaa intaan wasiirka salaamin inaan marka hore sheego gabdhihii iga horeeyay oo halka ka soo jeediyay khudbadihii qiimaha badnaay oo ugu horeyso Faadimo Axmed Caalin oo aad wada taqaanin oo ahayd wasiiradii qaranka Soomaaliyeed ee waxbarashada iyo Xareede Ibrahim Boolis oo ah looyarad ahna danjiri loo magacaabay Korea waxaan jeclaa marka ragga darajadooda la sheegay gabdhaha darajadooda in la sheego saas darteed waxaan jeclahay inaan marka hore salaanteeda ku bilaabo wasiir ku-xigeenka ama Prime Minister ku-xigeenka Soomaaliyeed ahna wasiirka tamarta Cabdiwaaxid Cilmi Cumar Goonjeex iyo mudane Axmed iyo marwada wasiirka arrimaha dibadda Marwalaki Xaaji Xasan oo iyaduna la joogta waxaan idinku soo dhaweynaynaa qalbi furan magaalada Toronto oo ah magaalo caan ku ah wadaninimo Soomaalinimo mar walbana sida halka laga sheegay u heelan inay gacan ka geysato midnimada iyo dib u soo nooleynta qaranka Soomaaliyeed oo naga burburay waxaan kugu soo dhaweynaynaa Cabdiwaaxid niyadsan iyo qalbi furan waxaan ku leenahay ku soo dhawow magaalada Toronto waxaan jeclahay intii aan ugu gudbin suugaanta aan ugu talagalay shirka caawa waxaa jira baraambur magaalada Toronto ay caan ku tahay oo markii marti ay noo timaado ama qof aan jecelnahay oo aan koolkoolinayno oo noo yimaado mar walba aan ku soo dhaweyno marka baraamburkaas aan rabaa Cabdiwaaxid inaan ku soo dhaweyno oo u sheegno magaalada aan ku noolnahay iyo waxa ay tahay iyo dalkan aan nimid ee aan ku soo birna hadaan nahay Somali community wixii aan kala kulannay Canada waa kay qabo kula ilahayn Canada waa kay qabo kula ilahayn kubki jabayo masaakinta lagu karame ya kulligood kufriyo islaana lagu karame ya kulligood kufriyo islaan marka hore waxaan dhigi jiray keega nala gooya laakiin hadda waxaan ku leenahay Cabdiwaaxid ku soo dhawow intaa kadib anigu waxaan ka mid ahaa waftigii ballaaraa oo ka qayb galay shirkii lagu soo dhaweeyay madaxweynaha dawladda midnimo qaran Shariif Sheekh Axmed ee ka dhacay Virginia waxaan ahayn group sida Naasir Cabdibaali groupku hogaaminaya ayaan ka mid ahayn gabdho badan halkan ku tagnay oo ay caado u ahayd mar walba inay dawladda taageeradeeda ka qayb galaan waxaan shirkaas kala kulanay khudbadihii faraha badnaa oo madaxweynuhu halka ka jeediyay oo qiimaha lahaa waxaan aad iyo aad ula dhacnay khudbadii uu ka jeediyay isagana Cabdiwaaxid halkaas oo la gelisay runtii qiiro wadaninimo madaxweynaha oo noogu baaqay in Soomaaliya maanta ay u baahan tahay dib loo noqdo dalkii la dhiso cid lagu hadlaynayo Soomaaliya aysan jirin oo Soomaaliya ay dayacan tahay waxa aad dareenkeena u kiciyay gabdhaheena halka ka qayb galay khudbadu Cabdiwaaxid meesha ka jeediyay uu leeyahay war Soomaaliya waxay ku jirtaa ceel dadka wadanka joogana awood ay ceelka uga soo saaraan malaha idinkuna dhabarkaad u jeediseen yaad ka sugayseen marka wadankii leeyahay inuu badbaadiyo oo sabata bixiyo marka Cabdiwaaxid dawladda anaga waa la jirnaa waa taageeraynaa mana aha afka oo keli ah hase yeeshee runtii dhibaatooyin mar walba maalinta ka dambaysa qalbiga naga guba oo niyadda naga dila ayaa dalka ka soo yeeraya oo isleenahay meeshan waxa ka socdo malaha waa waxaan dhammaan doonin oo aad moral jab noogu rida qaas ahaan dhibaatada haweenka loo geysto dumarka oo aad iyo aad ugu dayacan oo aan gar iyo mag la'aan marnaba dhibaatadoodii maaragtay ay taagan tahay xuquuqdoodii oo meel lagu iloobay
iyo qarankii oo dhumay oo ay ku dhex dhumeen. marka runtii haweenka Soomaaliyeed arintaas aad ay ugu walacsan yihiin waxaana hadda ay inta badan dadku ay isla dhex maraan ama dumarku ay ka wada hadlaan war mawaajib bay nagu tahay inaan dalkiisa uga aamusno mise inaan wax ka qabanno. marka waxaa dowladdan ay nasiib u yeelan doontaa insha Allah xoogga iyo maskaxda iyo garashada iyo dhaqaalaha haweenka in lagu taageero si ay dhibaatada ummadda Soomaaliyeed uga baxaan. abdiyow dalwana jiyo deqsiyo maqal abdiyow dalwana jiyo deqsiyo maqal deegaankan Toronto dad wanaagsan baa ku nool deegaankan Toronto dad wanaagsan baa ku nool wadaniinda cadow dafaca ku nool wadaniinda cadow dafaca ku nool Soomaali danaynayo dowladnimada raba Soomaali danaynayo dowladnimada raba oo weli u dooda yacalahankii dib loo helaa weli cabdi ku socotaa darajadaad haysa iyo duubka lagugu xiray darajadaad hayso iyo duubka lagugu xiray waxaad nagu deeqday hadalkaaga dulucda dheer waxaad nagu deeqday hadalkaaga dulucda dheer dawaadi lagu heli lahaa dowladinaan dhisnaa dawaadi lagu heli lahaa dowladinaan dhisnaa dardaarankiyaadna tirihi baan ku diirsanaa dardaarankiyaadna tirihi baan ku diirsanaa oo dumarka oo idil docdaha hadal dadka annagaa soo saarnay waxaan leeyahay waa nin wadan iyo wax lala qaban karo hala soo baxo marka saasaa lagugu yimid oo dumarka oo idil docdaha hadal la taagan yahay dumarka oo idil docdaha hadal la taagan yahay oo inaan dalka kula dhisnaan kula nahay diyaar inaan dalka kula dhisnaan kula nahay diyaar ee waryaan dib loo noqonin dalka hawana sugahayaa waryaan dib loo noqonin dalkii waana sugahayaa taas waa taas laba xabo shiriba waagi hore waxaan ka hadli jiray alhabaab iyo alqabaab iyo balaayadaas marka insha Allah way iska dhamaan doontaa tan waxay ku saabsan tahay dumarka Soomaaliyeed dumarku dawlado raba dahabna waa ku doonayaan dumarku dawlado raba ardahabna waa ku doonayaan dumarku dawlado raba dahabna waa ku doonayaan dumarku dawlado raba dahabna waa ku doonaya ardumarku dawlado raba dahabna waa ku doonay ardumarku dawlado raba dahabna waa ku doonaya ilmahan masaakiinta oo la jaawareersho oo bambada loo dhiibaayo isqarxiya la leeyahay danyartu